qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda gobolka Cayn ee ku dhaqan dalka Canada gaar ahaan magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa deeq lacageed waxa ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn gaar ahaan qoysaska haysta caruurta aan lixaadkoodu u dhameystirnayn sida naafada indhoolayaasha iyo kuwa dhagahala deeqdani oo ay soo direen hablo ka soo jeeda degmada Buuhoodle oo ku dhaqan magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa waxaa maanta loo qaybiyay ilaa 18 qoys oo ah dadkii loogu talagalay Cabdicasiis Cabdillaahi Aadan oo isagu ahaa wakiilka deeqdani loo egmaday inuu gaarsiiyo dadkii loogu talagalay ayaa ka warbixiyay dadka ay deeqdani gaarsiiyeen iyo sida ay u baxday anoo ah Cabdicasiis Cabdillaahi Aadan saad la socotaan waxaan gabdho reer Buuhoodle ah walaalaheen oo reer Buuhoodle ah oo jooga magaalada Windsor gobolka Ontario magaalada Canada iyo nin dalka Canada iyo nin islaam ah waxaan soo gaarsiinay soo dhammayd $900 markii qarashkii wixii laga jaray dadkaas waxay ugu tala galeen dadka walaalahood dad caruur oo dhagala iyo caruur indhala dadkii saasan ku soo liis karaynay dadkaas oo ka kooban 18 qoys lacagta saasan ku gaarsiinay oo ugu qaybinay waxaan u sheegaynaa hawshaas dadka kale walaalaha inay ka warhayaan dadka jilicsan noocaas ee walaalahooda kuwaasna Ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro hawshaas noocaas ay ahayd dadkuna waxay isugu jiraan caruur indhala iyo dhagala saasan u sheegaynaa saan hore u sheegay gabdho reer Buuhoodle ah oo walaalaheena iyo nin daktar ah oo islaam ah oo jooga dalka gabdhaha iyo wiilasha daktarkaasina wuxuu joogaan magaalada Windsor gobolka Ontario dalka Canada Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh qaar ka mid ah dadka deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa u mahad celiyay walaalahooda deeqdani soo gaarsiiyay iyagoo ugu baaqay in aysan intaasi ku joojin deeqaha ay soo gaarsiinayaan walaalaha iyaga jooga dalka Canada ee noo soo diray xoolaha u badbaanu haynaa dhagala oo indhala ee noo soo diray mahad baanu u naqaynaa mahad weyn baanu u naqaynaa mahad weyn baanu u naqaynaa si wanaagsanna waa naloo siiyey wixii aad noo soo dirteen waa naloo siiyey madii mahad labaad waxaan u sii naqayaa kuwan u soo gargaaray dadka caamada ah ama curyaamada ah ama muctaabsan mar raba ilaaha mahad le waxaan u sii mahadnaqayaa kuwan maanta dee wax u qaybiyay haddii miisleeyahay maaficdoodii ugu gargaaray waxaan leeyahay anoo ah Xiis Ibraahim Diiriye sidaa ay yeelayaan kuwa muslimiinta kalena ay ku dayato waayo waxa wanaagsan ee la sameeyo la wada sameeyaa wacan maaha markii ugu horeysay oo qurba joogta deegaanku ay lacag ugu deeqaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Cayn waxaana marar badan oo hore deeqo noocan iyo kala la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Cayn Khadar Cawl Ismaaciil Universal TV Buuhoodle